dhammaan waa idin salaamay dadweynaha ku xiran Isfahan Blossom. Waa hubaal sida taytalka barnaamijka aad ku soo aragteen wuxuu la xiriiraa barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan soo xigmadayn jirnay ana idiin soo turjumaynay. Xabiib Shekeeti barnaamijkaas dib u eegisbo ayaamahan ku hayay, idinkuna inaad fikradiinna ka soo dhiibataan lagama maarmaan bay noqotay. adigoo commenti ahaan u soo qoraya fiidiyowgana like saar. carab lo-aad caws looma tilmaamee. gafuur waa la sugi waayey iyo harwash ama ciyaalkii loo caal waayey, laakiin iiga jawaab su'aalahan kooban saaxiib hadduu qiimo weyn kuu lahaa. waa tan koobaade, maxaad ka faa'iiday walaalkayow ama walaashayay oo aad hadeertaan ii carabaabi kartaa ama ii sheegi kartaa? xigmad, hadal, qiso, dhaliil, mahmaah, murti iyo wixii la mid ah. su-aasha labaad, adiga miyaa xiiseeya keliya mise ilmahaaga sidoo kale daawada iyaguna? waa haddii aad tahay qof qoyse. waxaan rabaa inaan ogaado adduunka wixii uu ka tarayay, ilaan aakhiro inuusan ka shaqaynayn amba waa ogahay, adna waa og tahay. inta aanan su'aalaha sii badin, run ahaantii waxaan barnaamijkan ula jeedaa ama danta aan ka leeyahay baa waxay tahay inaan dhegaysto fikraddaadana aan ogaado, maadaama aad tahay qof ku xiran kanaalkayga YouTube-ka iyo page-kayga Facebook-ga. waana qiimayn gaar ah oo aan ku talagalay inaan siiyo oo aan u bareeq qabto walaalaha igu xiran ama barnaamijyadayda la socda. su-aasha saddexaad, maxaad rabtay ama jeclayd walaal inaad ka heshid kanaalkeenna ama aan kuu soo gelinno haddii aan awoodo? waa markii koowaad oo aan barnaamijkan fikrad idinkala wadaago, xiise gaara ayuuna ii leeyahay. qofna iskalama weyni, waan jeclahay qof kastana inaan fikraddiisa dhegaysto. insha allah fiidiyowgan fiidiyow ka dambeeya ayaan idiin soo gelin doonaa oo aan ka soo qaadan doono waxyaabaha muhiimka ah oo aad halkan inoogu reebtaan insha allahu tacaala. xabiib Shekeeti in muddaa buu soo xardhayey, xaggiina ka qayb qaata maanta. su-aasha saddexaad, magaca channelkeenna Isfahan Blossom ma idinku adag yahay mise waa magac fududoo dadka Soomaaliyeed ay qaban karaan oo qori karaan? marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad nagala qayb qaadataan. fikradihiina waa aan qaadanaynaa. sidoo kaleeto kanaalka haddii aada ku xirnayn ku soo xiran waxaa sheegtaan baa la sugayaa. odaguna dardar buu la yimid. gol iyo gobonnimo idiin rajaynayaa.